hay-adda NAF ee dhanka dhaqaale bixinta u qaabilsan dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in sanadkii tagay ee 2025 ay hay-addani bixisay lacagihii ugu badnaa abid, taasoo ka dhigaysa in kala bar dadka Norway ay lacago ka qaateen hay-adda NAF. waxaana lagu soo waramayaa in sanadkii tagay ee 2025 ay hay-addani bixisay adduun lacageed oo gaaraya 676 bilyan oo koronka Norwejiga ah, taa oo u qaybsamaysay gunnooyin iyo sidoo kale lacagaha shaqo ka fadhiisiga iyo lacagaha kala duwan. waxaana lagu soo waramayaa in lacagtan ay bixisay 2025 ay ka sarreyso 42 bilyan sanadkii ka horreeyay, taasoo ka dhigan lacago aad u fara badan inay hay-addani siisay dadka ku nool dalka Norway. in ka badan kala bar dadka ayaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan mar keliya xitaa ay ka heleen lacago hay-addan ay bixiso, waxaana lagu soo waramayaa inay intaasi u dheer tahay 115,000 oo qof oo ku nool dalka dibaddiisa ama ku nool Norway dibaddeeda in ay iyaguna lacago joogta ka heli jireen hay-adda NAF 2025. waxaana Norway gudaheeda ku nool in ka badan 1 milyan oo qof kuwa oo howlgab ah kana qaado hay-addan lacago joogto ah oo bilo ah, taasoo ka dhigaysa lacagaha ugu badan ee ay hay-addani bixiso in ay tahay lacagaha howlgabka. waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa guruubyada ugu badan ee lacagaha ugu badan ka helay NAF in ay yihiin kuwa ay da'doodu u dhaxayso 60 jir ilaa 79 jir iyo sidoo kale 30 jir ilaa 49 jir. kuwa ay da'doodu u dhaxayso 30 ilaa 49 sano ayaa lagu soo waramayaa in ay lacagaha ku heleen dhanka faa'iidooyinka qoyska, jirrada iyo sidoo kale shaqo la'aanta, halka dadka howlgabka ah ay xaq u leeyihiin lacago joogto ah oo aan kala go' lahayn oo ay bil walba ka qaadanayaan hay-addan, taa oo ah lacagaha howlgabka ah ay dowladda ugu talagashay dadka waayeelada ah ee aan shaqaynin. waxa ayna sheegtay kusimaha agaasimaha shaqada iyo daryeelka hay-adda NAF Eva Vagesnes in uu yahay dhaqaale aad u badan dhaqaalaha ka baxay hay-adda NAF sanadkii tagay ee 2025. lacagaha kordhay ayaa waxa ay ku sheegtay in ay ka badan yihiin 6.6% marka loo eego sanadkii hore. waxaana lagu soo waramayaa in hay-addan ay la tacaalayso dhaqaalaha xooggan oo ay sanadkii tagay ee 2025 ku bixisa dadka ku nool dalka Norway, kuwa oo ay sheegayso in kala bar dadka Norway ku nool ay lacago ka qaateen hay-addan. waxaana lagu soo waramayaa in aanan la qiyaasi karin lacagaha ay hay-addani bixin doonto sanadkan aynu ku jirno ee 2026 in ay kasii badan doonaan marka loo eego sanadkii tagay ee 2025. halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.